Real ka tirsan guddiga anshaxa iyo la dagaalanka musuqmaasuqa ee marka magacood la soo gaabsho loo yaqaano EACC ayaa howlgallo qorshaysan ka fuliyay xafiisyada iyo guryaha mas'uuliyiin sare oo ka tirsan ismaamulka Gaarisa iyaga oo baaraya musuqmaasuq lagu tuhunsan yahay oo ku saabsan qandaraasyo lacag dhan 1.2 bilyan oo shilin oo si sharci ahayn loo bixiyay. howlgalka oo dhacay maanta oo Arbaca ahayd ayaa lagu fuliyayba amaro baaritaan ah oo lagu qaaday 4 mas'uul oo muhiim ah kuwaas oo kala ah madaxa maaliyadda ismaamulka Cabdi Cali Nuuriye, madaxa maaliyadda Maxamed Daawud Korow, agaasimaha maareynta silsilada qalabka Maxamed Cabdi Xasan iyo agaasimo hore oo qandaraasyada ah Cabdi Wahaab Cumar. guddiga EACC ayaa sheegay in baaritaanada ay diiradda saarayaan eedeymo ku saabsan musuqmaasuq iyo ku takrifal qandaraasyo kala duwan oo ay ka mid yihiin dhismaha qayb ka mid ah garoonka Gaarisa, gaar ahaan midka garoonka diyaaradaha, dhismaha derbiga iyo barxadda dugsiga hoose ee Gaarisa, bixinta caymiska caafimaadka iyo adeegyada cunnada ee ismaamulka. sidoo kale guddiga waxa uu baarayaa eedeymo ku saabsan bixinta mushaaraadka shaqaale aan jirin ama ghost workers oo ay maamulka gobolka ku tuhunsan yihiin inay lacago siiyeen. howlgalka ayaa waxaa lagu soo qabtay ama lagu helayba cadeymo muhiim ah oo ka caawin doono baaritaanada socda guddiga EACC, iyadoo guddiga uu sheegay in tallaabo sharciyeed oo adag la qaadi doono marka baaritaanka uu soo dhamaado, taas oo ay ka mid yihiin dacwad oogis, qabashada ama dib u soo celinta hanti aan sharci ahayn iyo burburinta hantida musuqmaasuqa lagu helay. bilowgii bishan gudoomiyaha ama governaha ismaamulka Gaarisa Nadiif Jaamac ayaa hortagay guddiga EACC kadib markii loo yeeray si uu u bixiyo warbixin la xiriirta eedeymo ku saabsan musuqmaasuq iyo maamul xumo la xiriirta lacag gaaraysa 1.2 bilyan. warqad rasmi ah oo taariikhdeedu ay ahayd 19 Agoosto ayaa loo diray gabanaha, taasoo lagu dalbaday inuu bixiyo warbixin ku saabsan eedeymo la xiriira musuqmaasuq, shaqaalo aan sharciyeysnayn oo la shaqaaleysiiyey iyo lacago mushaaraad ah oo lagu bixiyay ama la siiyeyba shaqaale aan jirin intii u dhaxaysay Oktoobar 2022 ilaa Juun 2024.